gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ayaa ka qayb galay kulan nabadeed oo qabatay beesha Kheer Cabdi Qiyaad kaas oo ku taageertay baaqi shalay ka soo yeeray adhigood beesha Maxamed Garaad Baharsame oo ay ku qaateen nabad buuxda waxayna intaasi ku dareen inay si shuruud la'aan iyaguna u saxeexeen xabad joojin isla markaasna ay arinta ku dhameystaan wada xaajood ugu horreyn waxa halkaasi kelmado wacdi ah ka soo jeediyay Sheekh Xasan Bootaan isagoo ku dheeraaday faa'iidada ay nabadu leedahay yaa ayyuhalladina aamanu taqullaha haqqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun waxaan ku baaqaynaa oo halkan la isugu yimid oo shirkani ku saabsan yahay nabad lagu baaqayo shaqaaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii muddo badan soo jiray oo beelaha walaalaha ah shaydaanku waxa weeye ka dhex shaqeeyay in nabad waxa weeye lagu soo dabaalo wakiil garaad Jaamac Cabdiraxmaan Bulaare cuqaal odayaal iyo mas'uuliyiintii hadalka u kala dambeeyay ayaa dhamaantood ku dhawaaqay inay si buuxda u qaateen nabadgelyada iyagoona si mug iyo miisaan la u taageeray baaqi ay maalinimadii shalay sii daayeen beelweynta Maxamed Garaad Baharsame waxaan leeyahay walaalayaalow colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dad rag fara badan oo qiimo badan baa maanta ka dhintay hadaynu sii wadan rag kale oo qiimo badan baa ka sii dhimanaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka baqno nabada aynu soo dhaweyno qoriga hal la dhigo colaada hal la daayo nabada gacmaha lagu qabto hadalka iyo nabada hal laga run sheego alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun dhaweynaya oo aan ku raacsanahay nimankii igu horeeyay oo ahaa oqaasha culimada waxgaradka ismada wix allaale wixii hadii laba ku horeeyay igu horeeyay arintaas oo nabadda ku jiray sidii ay u qaateen baanu nabadda u qaadanay waxaanu u qaadanay in ay balaayadii hadii laba ku horeeyay dalka iyo dadka ba hadii laba ka aafaysay in ay sida ku soo dabar go'do oo ay nagaga dhamaato muddo dhowr cashaana waa u fadhinay natiijadiisa iyo shirka waxqabadkiisa shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii qolada horeba u sheegeen dagaalkii ka dhacay Qiyaad iyo Baharsame ee ay ku dhinteen dadka 67 qof ah ayna ku dhaawacmeen dadka 200 ku dhow hadeer sanadii ka dhiman baan u malaynayaa waxaanu leenahay wixii dhintay Ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacanayna waxaanu leenahay Ilaahay ha u boogadhayo waxa xirxidhanna waxaanu leenahay Ilaahay ha hariga ha u fududeeyo waxaanu markaa hadeer isla qaadanay oo aanu in badan qaadanay nabadgelyadaasi waa uu soo noqnoqotay waxaanu maanta rajaynaynaa tii ugu dambeysay ee aan soo noqon lahayn in Ilaahay ka dhigo horta nabadda waanu qaadanay si fiican baanu qaadanay horeyna waanu qaadan jiray hadii ay sidaas oo kale isla noqoto waxaanu leenahay Maxamed Garaad dib ugu celinayaa war tol baynu nahay war waynu wada dhalanay war daris baynu nahay war cid isku keenaatay iyo cid iska xigta wallahi ma jirto wixii dhintay waa dhinteen aynu sabir baan ka qaadano gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamuud Axmed Maxamed Ruura oo kulankaasi soo afmeeray ayaa sheegay inay xukuumad ahaan soo dhaweynayaan nabadda ay qaateen labada beelood ee walaalaha ah kuwaas oo colaadooda soo jiitamaysay muddo dheer maamulka hadaan wax ku soo dhaweynaa nabadgelyada lagu dhawaaqay oo soo dhaweynaa aad iyo aad u soo dhaweynaa beesha Maxamed Garaad iyo beesha Kheer Cabdi nabadda ay ku baaqeen horena dadaal baa ugu jirnay haddana dadaalka la sii wadaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Samiir Saciid Bila Muqbaaya xorta ee Bulsha TV la sacano